عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبليس حفصة بنت عمر مركي قروب أي نقطة أبو بكر وأبندق أبو بكر جواب مسين عمر وأبندق عثمان قال النبي عليه الصلاة والسلام يا بقول سدي أمهات المؤمنين أي نقطة إنها قوامة تن الله يوار فيري عمر قبليس أسجع للرهادنا أنا هدان دانو قبلين كودرا ninkan hadduu ku dhaho waxaa laga yaabaa inaan aad gabadha ma baartay si aan igu daraanay macnaha anaga ceeban u aragnaa maaha qof ahlu diin hada adiga aad taqaanid ama ehelkaagu yahay oo adiga wax ku tuumayso waxa leedahay haye hebreem kugu daraa guurka marka dadku waa la soo raadiyaa ikhwaani khaasatan qurbaha haddii wax aan la raadinin dhib badan dhalanay marka ikhwaani hadalkay waxaan ku soo xirayaa kelmad aan ku soo xirayaa إن أو جوركا لفظ تفضل شيخ. السلام عليكم شيخ والسلام معنا الأفرو ما شاء الله سؤال شاقة وحواني مجيء وحلا باب جيلاني أويس وحرنا إن جوركا لفظ ذايو حواي جوركا لفظ ذاينا وأرينو هذا ونأكسرنتي لكن دمركي إدتكي وحواي لعتي ku badan tahay marka in lacagta badan la sheegay in la yareeyo si guurka loo fuudeeyo taas diinta dhigay ma fahanta marka arintaas maxaa ka dhalay jazakallahu khair ustaad Jailani Babijay Allah yaqana sax ustaad Babijay wuxuu leeyahay guurka hal fuudeeyo wuri dadkii waxa lacag badan lagu xujeynayo marka sax waaye su'aal fiican waaye dadka macnaha hadaan waxaan dhahay dadka gabdhaha dhalay guurka adaa laga raba gabadhaada hataa in adiga aad guurka adiga akabtida la raba marka guurka hala fududeeyo walaalkeen wuxuu leeyahay waxaan rabnaa in guurkii la fududeeyo oo dadkii shuruud adeeg aan lagu xirin intaas keen aan la dheen sax waayo guurka waxaa la rabaa in oo laga dhigo fudeed waxaan oo dadka ula dardaarmaya oo gabdhaha dhalay in macnaha guurka la fududeeyo ikhwaani